Waa mid ka mid ah nambarada loogu jecel yahay dunida ciyaaraha. Waa mid ka mid ah nambarada loogu ixtiraamka badan yahay dunida. Waa mid ka mid ah nambarada ugu qaalisan dunida. Balse ma ku baraarugsan tahay sababta Lionel Messi uu u qaatay nambarkan? Lionel Messi ayaa taageere u ahaa labada ciyaaryahan ee Deco iyo Ronaldinho. Messi ma ahayn mid tiimka la imaaday nambarka 10. Messi markii ugu horeysay uu tiimka kusoo biiray wuxuu qaatay nambarka 30, isagoo u ahaa taageero labada ciyaaryahan ee Deco iyo Ronaldinho. Deco ayaa xirnaa nambarka 20, halka Ronaldinho uu xirnaa nambarka 10. Markii la isku geeyo tiro ahaan waa 30, waana nambarka uu Lionel Messi go'aansaday inuu qaato xilligaasi. Bilowgii waxaan ahaa mid xishoonaya, waxaana ku dhihi jiray maya, halkan ayaan ku qanacsanahay, balse ayagu waxay igu qasbeen inaan ayaga la fariisto. Messi ayaa doortay nambarkiisii ugu horeeyay isagoo qaatay nambarka 30, balse markuu xilli ciyaareedkii dhammaaday ayaa Messi loo soo bandhigay nambarka 1 ilaa iyo nambarka 25 inuu ka dhex doorto. Ugu dambeyntii, Lionel Messi wuxuu go'aansaday inuu qaato nambarka 19, balse 2008 wax walba way isbedeleen. Ronaldinho ayaa ka tagay tiimka, taasi oo u ahayd Barcelona dhabarjab aad iyo aad u weyn. Ronaldinho oo ku biiray AC Milan, balse Lionel Messi ayaa ahaa mid mar walba ku hamiyi jiray inuu mar uun ha noqotee mar xiran doono nambarkaasi 10. Intuusan bixin ayuu noo sheegay inuu bixi doono, isagoo ii soo bandhigay inaan qaato nambarka 10. Messi ayaa aqbalay bilaa shuruud, isagoona marna ka fikirin. Waan aqbalay bilaa shuruud anigoona saas u sii fikirin, sababtoo ah waqti aan ku fikira ma haysanin. Balse ugu dambeyntii Messi ayaa gaaray halkii uu ku haminayay, isagoo ahaa inuu mar uun mar ha noqotee xirto nambarka 10. Messi aad ayuu uga soo baxay nambarkan, isagoo tan iyo markuu dhabarka surtay nambarka 10 Messi si aan caadi ahayn usoo bandhigay ciyaarihiisii. Waa lama qabtaan hadda, isagoona ku qaaday nambarkan 4 Ballon d'Or, 3 Champions League, 7 La Liga, isagoona 92 gool dhaliyay xilli ciyaareedkii 2012, taasi oo ilaa hadda wax dhaliyay uusan jirin. Rikoodhkaas Messi waa mid mucjiso ku soo kordhiyay nambarka 10, waana xaqiiq, isagoo raacay wadadii raggii kaga horeeyay nambarka ee Zidane, Pele, Maradona. Messi ayaa hadda ah midka ugu wanaagsan dunida ee nambarka dhabarka ku wato, balse Messi ma aha mid nasiib u yeeshay inuu xulkiisa meel geeyo, mana aha ilaa iyo hadda wax uu kula guuleystay ma jiro xulkiisa, balse waa mid aad iyo aad uga muuqda Barcelona, waana lama qabtaan. Lionel Messi waa mid ay taariikhda xusi doonto, waa mucjiso.